ننبا وحالي نن عاقلها طلبتنا نن هذا طلبان بوها ننبا كل كيري ورنك وحكم الموي ديسين وحن معنا ننبا كل بكتر هذا أنا نك على إيجيو وأطق بالي مش هستوجاي نك ويجيبه وهي النية وشدير بانقوص ومرين نن عاقل أنا والوجوش شيء صدق مثلا كهرباء أنا إيش شكت صدق يعني كهرباء marka koobaad inaan xoolo yeelanayo in kala adduunka intaan joogo ii sheeg marka labaadna goortaan dhiman ii sheeg la ii imani ii sheeg marka saddexaad aakhire in la jannayni in la cadaabina ii sheeg bi saddexda mas'alo yani oo ka rabaabi ninkii caaqilka ismaba dhibin wuxuu yiri jidheer hadda soo martay su'aal muhiim inaad weydiisay ahayd bi saddex mas'alo basiid aad weydiisay oo macna walahayn bad weydiisay bi kolka waan kaaga jawaabi bi حق حوالها سادو كله الرئيسيسان أنا كوو كله الرئيسيني حق حوالها من وين هذا يويل كاغو عرض هذاك حولة شعلالان حولة وادي يلم بير حولة وادي يلم بير حدي إن كستبع أدلاشد أتقعد شيء خير ستد كواع صون كأداء كي ستد أدولي بتشيلاتد قوريا قلب عرو هذا هاتد من وين هذا يويل كاغو عرض هذا أدو كله حج على بدناته قرق بوحة عانا وكا ولا إنه سئم بذكور ولا ينبي عير باكو ربي هذا الله ذا كله حج على بدناته من وين هذا ولا قرن يا وان ولا إسلام تنوكو جورج كو تأجوين بهيسه بدأ أجوين بمن وين لا رها وأجمع هذا الكباح هيان مية بالتشوجي مقالة مكشف قيست يوم ما الحاجة حوالها للسقوط صدر يو محوها بقوله سكشف قيست وحس مترين حوالا نقول ولا يا واحد باديها كسر أو كل كوحية لولا هذا تكلم حتى على بضاته عير باكو هرن هذا يو كان قبطان هنت بعض يالن وحاجة حوالها حاجة دمشقة dadkii kula midka ahaa ee kula aynigaha markii la dhex galo hebel wuu dhintay hebel sana horu dhintay hebel waa laga soo qeyliyay hebel intaas oo sana ma kicin kolkii dadkii kula aynigaha la dhex galo waa lagu la joogaa diyaar garow oo safka hore galbi hada waa sida qaalibkii ruux isagoon ayniga dhamaanin isagoo dhiman kara laakiin qaalibku ka hadlaya aynigaaga markii la dhex galo waa lagu la joogaa diyaar garowbiyo waa xagga dhimashada xagga aakhira waxaad mudani shirka markaad ku soo baxdo heerkaaga markaad ku soo baxdo majlisyada la joogo markaad timaado iyo meelaha mujtamacu joogo haddii lagugu farxo oo hanqalka lagula raaco oo homaalka lagu siiyo oo lagu dhoolo cadeeyo oo meel lagu baneeyo oo ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo markaad ku soo baxdo ay farxaan oo lagugu soo shiro ehlu janna taybi ehlu janno oo xaajada aad gasho khayr laga fasho leeyahay Allah warna khayr qaba xaajada ku jiro oo hebel kulba xaajada haduu ku jiro wax wanaag laga oo wanaag ma laga filan loo ehlu janna taybi haddaad ka lidkii noqoto oo meelaha ku soo baxdo iyo meesha xaajada ku jirto iyo shirka iyo majliska iyo meelaha ku soo baxdo hadii laga naxo oo hoosta laga habaaro oo isha lagu maroojiyo oo lagu baneen waayo oo meesha markaad ka tato lagu farxo leeyahay ilaahay baa na dhaafiyay oo xaajada ku jirto khayr laga filan waayo oo islaanta iyo carruurta markaad ku soo baxdo kala cararaan tolo maxay dhihi doonaa ay dhahaan intaad nafbaxaysa naarta ka xigtay intaad nafbaxayso yaa naarta ka xigtay haddaad adigu xujo uga jeeday iyo haddaad cilmi kororsi ahaydba saddexduba waa midka haddii wiilkaaga iyo maweenadaada aad ka ay ka la xajala badnaadaan xoolaad yeelan haddaad ka la xajala badnaatana cayr baa ku huran aynigaaga markii la dhex galay waa lagula joogaa ee cibaadayso oo safka hore gal aakharana xantaada la soco waxaad mudani xantaada adduunka la soco xan wanaagsan iyo ruux khayr qaba haddii lagu yaqaan ahlu khayr baa tahay haddii muxuu ahaa ruux khayr aan lahayn lagu yaqaanana ahlu shar baa tahay buu yidhi